There's too much traffic, brother. We jump out. Soomaali waa kuwaana taxiga la soo fuulay waxa bal tageen ama ay fir ku leeyihiin waxa ku garanaysaa baraanki socdaa qof Soomaali ah ku soo dhaxdhacaya qofka Soomaali TikTok live kii socdo ba gabadhi booliis guriga u soo galeen markaas Soomaali aniga wax xaditaan kuma ogeeyne qoftaan amina nabaysaa amulaahi calaykum asxaabteeda soo noqosho wanaagsan maalin habeen duur casr markab cisho waqti walba idinta wanaagsan maantay waa hanti dhowrkii qaranka waa barnaamijyadii Soomaalida quseeyay ee dunida dacaladeeda trendka ahaa ama laga hadlayay habeen kasta iyo maalin kasta anaga waana la xantaa la asxanteen wax noo soo gudbiyaan heli jirin wasiirka meesha idin fadhiyo min Jamaica ilaa Japan macna ilaa Jordan meel walba ana wax idin quseeyo wallahi idin ku xantay ana idin keenayo horta waxaan ku daafuraya ninkan daaha waa taqaanaan yarkan Soomaaliga ah wuxuu qaaday koobkii Sweden bay qaadeen maalmo u dheelaa si kal ilaaba bay Soomaalida qurbaa ugu hambalyeeyeen waa ninkaas ka dama Champions League u imaan doona ciyaartii u dambeysay hal iyo ku badiyeen baaxta la isla soo gaaray ninkaas ka dama Champions ka daawan doona Champions ka sanadka dam wiil Soomaaliya dheelay waliba asoo Soomaali ku hadlay waa Soomaaliya dhan itaageerayso wana arka wana maqlaa sport kadan waa dareemaas wana waraba ni sheega adi badani arka wasan jacaylka wani haya Soomaaliya dhan meesha dhan joogo wana arka waa santii Maxamed Saalaxeen adiga waa Champions sanadka damaniga maalma saarnay waayahay daaha marka muuqaaladiisa isaga waxa waayday waa meel walba idin kaga soo horbaxayeen waa garan kartaan intaas aan kaga gudubno daaha marka waayahay muuqaalkan 2.4 milyan ba daawatay 2 milyan iyo 400 macna waa muuqaal social media trendka siiba TikTok. There's too much traffic, brother. We jump out. Traffic? Yes, with a 10-minute. But if you don't come in taxi, normally I'm going to ride. Now you take the traffic and you say we go out. How? Dooda waxay ku socotaa gaarigan walaalo jaam ku jira meesha u soconno aniga 8 daqiiqo u soconaa gaarigana 10 daqiiqo u soconaa waa degeynaa ay taagiin marka waa bal iska degaaba Soomaali waa bal iska degaaba macna ana rabayna socdo may sidaysin you stay in the cab let me walk listen brother yarka wuxuu taagan yahay walaalayaal 6 daqiiqo soconaysaan isdijiya ayagana waxay taagan yihiin 12 daqiiqo waa meeshan jaamkana u jeedna macna yarki asagoo xanaaqsan laga daadara Go out. 1 hour and a half. يا أهي ماموينك إنك ما قادان وركود إنه وعدي هب تاكسي ولا سوكر استمر لحصو مرة على قداتي وسلامنا ماموينك شرفي كرامه next. ودريمي فيري قفك الصومالي جاء مركو برانك إحنا كقصو دعو ديجهان أو دريم سالها مركز نيكان هذا العبارة وشتدو القادنا مش رقاجنا قبل هوري بكحرق ذبو هوري مع warkeeda hilib geel ina cunay ama awyaasha hilib geel cuni jireen ee caana geel ay dhiigeen ku dhex jiraan taas ka garanay ninkan waa iska dul qaadanaa isma dhaqaajinay gabadhan warkeeda waa cadda alla si ay macna ninkan reject ku qabatay waayahay next waa raxmo ramla cali qoftan saan isku waaleysaa indhaha laga fiiriyo macnaha aniga waxa la garoonkan waxaan ahay aan ku tusaa indhaha ka gal wajiga inta ka saar natiijada saar noqotay waa tan natiijadii la ilaaha illa allah muhammadur rasuul bas fi adi kaamirada hal ciyaartid oo afeer inta ka saar wajiga u saar garoonkan oo balnaa gabdhaha Soomaaliyeed kartidaas waa idinku ogaa waayahay TikTok live socdo oo booliis soo dhaxay I do full time on the other kids. You look after other children? All the kids. You childminder? What TikTok live socdo? I'm just tired. You know, as a mom. TikTok live kii socda booliis soo dhax istaagay guriga. For help, but no one helps me. Booliiska mar gabadha wareysanaa. The people they put report on to get me some outside. Muuqaalkan waxa zaid u wareejinayay saxaafadaha Ingiriiska aad uga hadlayay ayagoo taagan damaam commission TikTok live siyaasadoodii waa TikTok maadaama diidihiin oo TikTok ee dagaal adag kula jiraan wax meel ugu marmarsiyoodaan ay heleen waa idan mashruuci ka dhiganayaan waa fahansanahay Okay, I'm gonna
listen to me ujeedaa intaasaan ku tusaanaba inaan daro waa deganaa waxaan tusaa video wuxuu ka hadlayaa ninka guriga aniga waa iska baahi ilaahay ummadda Soomaaliyeed ee qurbaha ku joogta ilaahay ha xafido xaalad adag buu السلام عليكم أمباليو صوماليا و18 صوماليا صدق Suudaan eber إبر أمباليو Soomaalida social media in awood ku yeeshaan waxa u garanaysaa luqadda Soomaaliga 2 sano 3 sano ka hor hadii kulankan oo kale ay Soomaalida badan lahayd iska daa in af Soomaali loogu soo hambaliyay xataa in loo hambaliyay lagu fikir lahayn hadeer laakiin muddo yar kadib waxa dareemaysaa in حتى لو قدودي إن ما تقانا لو وصهم بليانايو سي سوماليدا رياكتين كود إيه في العلم تود الله هيرو مركا سوماليدا ولي بدنا كان إيه أفريكان كي عرب تزيد زائد وفانسيين إن سوماليدا سوشيال ميديا هي أكتفوجيين حتى ودات شوي مركا لو قد الصومالي حتى عدة فرق بدن إيش وترين قرينا يعني إنه كهلان. I grew up here. Everyone used to claim they were Jamaican. Then as soon as I was on top درعيدي إيه نظام كده بقطع استوديو ولا فديها بودكاست عادي اللي يقيم قادروا إياه then like سي والله ما ورسي والله واسك داف wax kale dharkii dhaqan xataa meel leer gaarsiinayaan am I saying it? بودكاست عادي alla fadhiya Am I saying it right? diriciidina ka wadataa But what country you from, bro? I hate that, man. English. Ay. gabadha markay waxay ka doodaysaa dadka madowga ah ee dhaha waxaan ahay British waxay taagan tahay qorniyo wax British la yiraahdo ma jiraan adiga wadankaaga saxda hadii lagu weydiiyo xagee ka timid wadankaaga saxda sheego aniga halkan aan ku dhashay Soomaalina waa ahay Bro, you're British. I was born here. I'm British, but I'm Somali. I'm African, bro. You're British Somali. You get what I'm saying? podcast adag lagu doodayay dadka originkooda ka dhuunta oo originkooda aan sheegin iyo dadka originkooda ku faan u ahaa Soomaalidana mar walba kaalintooda bay ku jiraan dadka hadii la dhaho where are you from I'm from Somalia hatta hadii meeshaas ay awgiis ugu dhashay dad Soomaalinimadooda mar walba sheegto waay وسلامنا سي والله ميل دير نو ودان وايهي نيكست يمكن اكثر موقف wuxuu ahaa maalintii labaad haye لما markii qof amnigeena mas'uulka ka ah خبرنا wuxuu noo sheegay in teleefankiisii laga xaday maalintii koobaad Soomaalida tuugnimo ama xaditaan qurbaha intaan joogay waa laga yaabaa wadamada Marookaanka iyo Romaaniyaanka iyo xaditaanka aad lagu sheegi jiray laakiin Soomaali iyo xaditaan waa markii ugu horeysay aan maqlaay Soomaali gudaheeda ha dadku waa saxadaan laakiin qurbaha waxyaalaha Soomaalida nadiifka yihiin waxa ka ahaan jirtay tuugnimada ama xaditaanka waxaan rajeynayaa feelkaas markii ugu horeysay iyo markii ugu dambeysay inay noqoto Ilaahay idankiisa waayahay kuma dheeraanayno maanta intaasan ku joojinaynaa hanti dhowrka qaranka sidoo kale daaha waxa ugu soo qortaan commentiga hambalyo kale ilaaba ugu soo qora waxa waaye waa dabcan nin dhalinyaro horumarkeena waxa waaye macalinkeena kor ku wato waaye Soomaalinimadina kor u qaadayo hambalyo daaha commentiga ugu soo qora barnaamijka hanti dhowrka intaasan ku soo gogeynaya barnaamijkan qurux ma iga diyaaran document qurux ma like subscribe ciao ciao